أن كينيا Soomaaliya khilaaf xoogan baa u dhaxeeyay baryahan dambe oo ku saabsan murankii badda dacwadoodii ay gaadhay ilaa maxkamadda caalamiga ah arrintaasi waqtiyadii ay dhacaysay ama ay dhacday ka hor waxaad ka mid ahayd mas'uuliyiintii ugu sarreeyay dowladihii ku meel gaarka ah Soomaaliya maxaad kala socotay halkeysay ma ku socotaa arrintaas والله arrintaas dilmay waxaan ka mid ahaa anigu halkan wasiirka khaarijiyada ahaa xidhiidh arrintaa ku saabsan way nooga timid dilmay muxuu ahaa dowladda Norway oo dilmay kolkaas waxa xuduudda badda ee 200 ee dilmay nautical miles kuwan la yiraahdo ee wadan walba uu leeyahay inta dilmay dowladda hadilmay ay Soomaalida ay leedahay in hadilmay muxuu khayraad farbadan ay ku jiraan in la hadilmay survey gareeyo in siyaalo farbadan bay hadilmay maxay waanu idinka caawinaynaa maxay idin la tahay in la soo saaro shidaalka afka kumay dhufan kolkaas laakiin se baddaas hadilmay 200 hadilmay muxuu ahaa mile nautical miles kan mile badeedka ah in hadilmay muxuu ahaa ay waxay yiraahdaan waxaan jecelahay wax idin kala qabano sidii hadilmay maal hagaagsan loo sameyn lahaa kolka demarcation hadilmay waxa kala badda xuduudada badda kolkii hadilmay muxuu ahaa arrintaas annagu aanu eegnay waxaanu aragnay qaanuunkii badda ee kolkaas hadilmay caalamka uu ku shaqeynayay inuu arrintaa ku filan yahay annakuna aan weli nahay dawlad hadilmay ku meel gaar aan ahayn dawlad distoori ah waxaan ugu jawaabnay kolkay dawladda distoorigu timaado ayaa arrimahaas aan hadilmay xuduudka iyo dawladaha kale hadilmay sida loo wada xaalaya iyo arrimahaasi waxay u yaalaan dawladda hadilmay maxaa distooriga ee iman doonta annagu waxaan ahay dawlad ku meel gaar ah saasaan hadilmay annagu ku niri dabeedna hadilmay muxuu ahaa aakhirkii 2006 kii bay la tahay inay ahayd ayay kolano hadilmay joognay shir hadilmay Afrika madaxweynayaasha Afrika ay kula haayeen Addis Ababa hadilmay haddana ay noo yimaadeen qoladii Norwegian-ka iyo hadilmay qolo Kenyan oo wada socda oo ay arrintaa hadilmay haddana nagala hadleen madaxweyne kolka waxaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed taladaydu anigu waxay ahayd arrintani ma aha arrin aynu hadilmay iminka dhexgeli karo ay hadilmay si hore baa inoogu jawaabnay inoogu jawaabnay saasaan ugu jawaabnay dabeedna hadilmay kolkii dawladdii ku xigtay Cabdullaahi Yuusuf ahayd Sheekh Shariif kolkaa weeyaan kolkay runtii arrintu ay bilaabantay inay Kenya hesho hadilmay muxuu ahaa waxaan la yiraahdo meel ay cagta dhigi karto oo ay arrintan ka soo gali karto dawladdaas ayaa hadilmay muxuu ahaa ay ku qancisay iyada iyo ninkii United Nations-ka u fadhiyay hadilmay maxalkaas Soomaaliya qaabilsana oo nin hadilmay muxuu ahaa Mauritania beerta inuu ahaa hadilmay Ahmed baa la oran jiray mahiga oo ka dambeeyay hadda la oran jiray ninkaas ayaa hadilmay muxuu ahaa arrintii soo dhaxgalay dabeedna hadilmay Soomaalidii waxa lagu qanciyay in arrintaas hadilmay muxuu ahaa hadilmay si deganaansho heshiisa lagu dhameeyo waxaana hadilmay lagu qanciyay dawladda hadilmay ku meel gaarka wali waa dawladdu waa ku meel gaar hadilmay muxuu ahaa arrintii annagu aanu ka gaws adeegnay ahayd dawlad ku meel gaar ah arrintan ma gali karto ayaa lagu qanciyay inay gali karaan halkii dhibaatada ka timid waa halkaas halkaasay ka timid halkaas hadilmay muxuu ahaa dawladdaasi iyadoo oon arrimaha ka fiirsan hadilmay muxuu ahaa malaha dano hadilmay gaarina ay jiraan hadilmay warqad MOU waxa la yiraahdaa Memorandum of Understanding amba isfaham hadilmay muxuu ahaa laba dhinac inay hadilmay la saxiixdaan ay ahaan arrimaha xuduudka ee badda si hadilmay waxaanu jecelahay inaanu isku haynaa inaynu iska heshiino taasay halkaasay ka soo gashay Kenya kolkii hore ma bay haweysanahayn waana ogsoon tahay Kenya si wanaagsan bay ogsoon tahay xuduudda
hadilmay maxaaha badda hadilmay u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya inuu hayay mid caalami ah inuu yahay dadna waxay doonayaan inay wareejiyaan